halkan waa qabriga uu ku duugan yahay marxuum Maxamed Goomey oo dhawaan lagu toogtay magaalada Baydhabo. waxaa ka taagan arrin musiibo ah. qabrigan haddii aad habeenkii kor timaado waxay indhahaagu qabanayaan holac aadan aqoonin meesha uu ka socdo, waxaana holacan weheliya qayladhaan aan la aqoonin cidda qaylinayso. subxaanallah, qabrigan waxa ka taagan waa wax mucjiso ah oo uu Ilaahay u samaynayo inaynu ku cimri qaadanno. hal mar aynu u wada ducayno marxuumkan geeriyooday, isla markaana laga jaaseeyay dhiiggii uu ka galay marxuumad Aamino Maxamuud Malaaq oo uu si arxan darro ah u khaarijiyay. muuqaalkan qaybta dambe waxaan ku soo bandhigi doonaa muuqaalo qarsoodi ah oo xilli habeenkii ah laga qabtay qabrigan oo asaga dhan ololayo, isla markaana qaylo aan cid qaylinaysa aan aqoon ka yeerayso. balse inta aanan guda gelin muuqaalkan oo dhammaystiran, hal mar qaybta hoose ee kommentiga Ilaahay aan uga barinno inuu Ilaahay qabrigan ku qaboojiyo marxuum Maxamed Goomey oo dhawaan lagu toogtay magaalada Baydhabo xilli laga jaaseeyay dhiiggii uu ka galay marxuumad Aamino oo uu si arxan darro ah u khaarijiyay. muuqaalkanna sidoo kale like saar si uu u gaaro saaxiibo fara badan oo mucjisadan u aragta, una sheer garee saaxiibada Facebook kugu weheliya si aynu u helno saaxiibo u qalbi furan sida adiga oo kale. waad ku mahadsan tahay daawade la jaanqaadkaaga. dadkii u dhowaa qabrigan waa ay ka qaxeen. xoolaha markii ay marayaan waxa ay maqlayaan qayladhaan aan jiho lahayn, taasoo cabsi iyo walwal ba'an ku reebtay dadka iyo duunyada ka ag dhowaa qabrigan. subxaanallah, qofka halkan ku duugan waa Maxamed Goomey oo dhawaan haweeney si arxan darro ah ugu dilay Baydhabo, isna lagu fuliyay dil toogasho ah. waxaana lagu arkay qabrigiisa arrin musiibo ah oo dadka reer Baydhabo badi ay la yaabeen. marka aad u dhawaato qabrigan xilliga habeenkii ah, waxay indhahaagu ku tusinayaan holac ku eg qabriga oo aan meelna u dhaafsiisneen, taasi oo laga dheehan karo inay ka soo baxday cuqubadii ka timid dilkii uu u geystay marxuumad Aamino oo ahayd hooyo maskiin ah, isla markaana carruur korsata, weliba carruurta ay korin jirtana ay ahayd carruur agoon ah oo ay u xamaalan jirtay, isla markaana waxa ay u xamaalatana u keeni jirtay carruurteeda si ay ugu noolaadaan. qaar ka mid ah culummada Baydhabo joogta oo qabrigan uu holacu ka baxayo la geeyey ayaa quraan ku aqriyay, allana ka baryay inuu damiyo mucjisadan lagu arkay qabrigan. balse weli waxaa socda ololka ama holaca iyo qayladhaanta ka yeeraysa qabriga, taasi oo baqdin xooggan ku sii abuurtay cidihii dariska ahaa ee ka ag dhowaa qabuuraha uu ku duugan yahay marxuum Maxamed Goomey oo dhawaan lagu toogtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. arrinkan mucjisada ah waxa uu maanta noqday mid si aad ah ay u hadal hayaan shacabka reer Koonfur Galbeed. qof waliba oo ku sugan Baydhabo haddii aad la xiriirto isla markaana aad warsato, waxa uu kuu sheegayaa mucjisadan lagu arkay qabriga Maxamed Goomey oo xalay bas uu ku duugan yahay, maadaama shalay subax hore la toogtay marxuumkan geeriyooday. arrinkan waxa uu noqonayaa mid mucjiso ah, waana qabrigii ugu horreeyey ee sidan oo kale qiic iyo holac uu uga baxayo, welibana uu marxuum Soomaaliyeed uu ku duugan yahay. ugu dambayn waxaan eebbaweyne ka baryeennaa inuu markaasi qabrigan mucjisada ka taagan tahay holaca iyo markaasi ololka uu ka socdo uu ka yaraado, sabab la xiriirta inaynu u duceeyno marxuumkan geeriyooday. ugu dambayn waxaan leenahay maadaama marxuumkan laga jaaseeyay xaqii uu markaasi ka galay marxuumad Aamino, Ilaahay ayaan uga baryeennaa inuu naxariistiisa u fidiyo, isla markaana jannatul firdawsa ka waraabiyo. ilaa ay dhamaadka maqaalkan haddii aad ina wehelisay, fadlan muuqaalkan like saar si uu u gaaro saaxiibo fara badan, una sheer garee saaxiibada Facebook kugu weheliyay si aynu u helno saaxiibo u qalbi furan sida adiga oo kale. boggan wariye Cabduqaadir Siisi like iyo follow dheh, taa waxay kaa caawinaysaa inaad hesho warbixinada degdeg ah ee aynu halkan maalin walba ku daabacno. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. magaciigu waa Cabduqaadir Cabdullaahi Siisi.